بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، walaalyaal waxaan kusoo guda jirnay kitaabkeenii ahaa al-ajruumiyah. waxaan soo qaadanay kalaamkii tacriifkiisa iyo qaybihii uu qaybsamay inuu kalaamku u qaybsamo isim, ficil iyo xaraf. waxaan soo qaadanay mid kastaaba calaamadaha lagu garto. insha Allah taala maanta waxaan guda gali doonaa baabkii labaad. baabkii koowaad wuxuu ahaa al-kalaam, baabka labaadna waa al-i'raab. sheekhu wuxuu yiri rahimahullah, al-i'raabu huwa waxa tagyiiru wa isbadalka awaakhir al-kalimi, kelimada aakhirkeeda لاختلاف العوامل وحنا آخر كاس وحو إسلا بدل وحي عوامش إسبدل كذا الداخلة جلسي عليها على الكلمة كلمة جلسي لفظا سمو قطع أو تقديرا أما السم مركاسي لقو قدر أي مركاسي إسلا بدل ليس آخر كاس شيء قوي حنوش هي تعريف كإعرابته أيها كان كوجد قلي. الإعراب لغة محلي هذا الإبانة والبيان إن العضية وحل عضية أي هذا إعرابته لغة أهان أعربت عما في ضميري وحان عدي وحي مركاسي قلبي كجري أيان عدي. إعراب لغة أهان واي. إصطلاحا وحواي وتغيير أواخر الكلم ومركز إسبدليو كلمة دا آخر كذا ماشي وحالوسو قدرية مضاف تغيير أحوال أواخر الكلم إسبدل حالتها كلمة دا آخر كذا كلمة دا آخر كذا مش بدلس لكن واحد إسبدليو حالته هذا سيدا مرنا إني مركز جود نقطة مركز رجع أي نقطة مرنا إيه أصدق نقطة سيدا جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد ما أنت واحد بدل محي وشقلك وحالة هواي زيد زيدا زيدين مركا شقل كاس محو أسلوب بدليا لاختلاف العوامل عوامشي يكون عمل فلي اسخلاف كودي الداخلة عليها عوامشي مركز جلسي كلمة دا بدل كإسبدليس كو عمل فلي أي أسباب بدليا سيدا سأيو مركز كلمة دا آخر كذا حالة دا يتا اسكو بدليسا سؤال أهان جاء أو كلا هذا وحيد البنيسا قد أيد البنيسا رأيت وحيد البنيسا وعامل كرديك أيد البنيسا مررت بي وحيد البنيسا هوسديك أيد البنيسا مركا اسم بدل كاس كلمة آخر كده حالة دايتها اسم بدل يسو وحكين سنة أيولي شيقة عوامشي يكون عمل فلي هرجلياش مركاسي كلمة يكون عمل فلي أيا كين سنة اسم بدل كاسي مركاسي كلمة آخر كده كدحي isbeddelka marka wuxuu noqonayaa lafdan mid muuqda ayuu noqonayaa sida jaa muhammadun maanta way godanta godkiina waa muuqda aw taqdiiran am mid lagu qadaray ayuu noqonayaa sida jaa muusa maanta godka waa muuqdo laakiin waa lagu qadaraya dammatun muqaddaratun ala aakhirih damma markaasi lagu qadarayo aakhirka kelimada alifka meeshaas maadaama alifka uu ka muuqanaynin dammadii ay ka muuqanaynin waa lagu qadaraya waxay ka muuqataa xuruufta aan alifka iyo waawda iyo ya-da aan u dambeeynin laakiin haddii mar alif ama waaw ama ya ay u dambayso kelimada waa lagu qadarayaa i'raabta wa aqsaamuhu qaybihiisuna arbacatun wa afar rafcun rafca waaye iyo wa nasbun nasba waaye iyo wa khafdun khafda waaye iyo wa jazmun jazma waaye rafcada waxaa la yiraahdaa maaragtay culimadu iska soo gaabiyaan oo qaarkood waxay yiraahdaan waa god laakiin waa aragtay god way ka balaaran tahay waxaa lagu tacriifiyaa isbedel gaara calaamado lagu garta leh calaamadahaas lagu gartana waxaa asal u ah godka iyo markaasi kuwa markaasi ayaga godkaasi farac ka ah godka ayaa asala calaamado kale farac ka ahna way jiraan nasbaha asigana waxa la yiraahdaa waa isbedel gaara calaamado lagu garta leh calaamadahaas lagu gartana oo asal u yahay kordhiga sidoo kale waxaa jira calaamado kale oo markaasi farac ka ah kordhiga khafduhuna waxaa la yiraahdaa isbedel gaar ah calaamado lagu garta leh calaamadahaas lagu gartana ee asal u tahay hoos dhig jazmuhuna waxaa la yiraahdaa isbedel gaar ah calaamado lagu garta leh calaamada lagu gartana uu asal u yahay sukuun marka rafcuhu hadii la soo gaabiyo waa god iyo calaamado markaasi farac ka ah god oo asal ah iyo calaamado farac ka ah nasbahana waa kordhig asal ah iyo kuwa kale farac ah qafduhuna waa hoos dhig asal ah iyo markaasi calaamado kale farac ah jazmuhuna waa sukuun asal ah iyo calaamado kale farac ah fal asmaa asmaadu marka way kala qaybsanayaan asmaada iyo afcaasha calaamadahani rafcaha maaragtay nasbaha iyo khafdaha iyo jazmaha ay kala qaybsanayaan xarafka asaga lama i'raabo xarafka waa la bineeyaa al-imaam ibn malik wuxuu leeyahay fi alfiyatihi wa kullu harfin mustahiq lil binaa xaraf walba wuxuu mudan yahay in la bineeyo xarafka marka sidiisaba lama i'raabo ee waa la bineeyaa
marka asmaadu waxay ku leeyihiin falil asmaa'i asmaadu waxa u sugnaatay min dhalika i'raabtaasi la soo sheegay ar-raf'u raf'a ay ku leeyihiin iyo nasbu nasbo iyo wal khafdu khafda ay ku leeyihiin wala jazma ma aragtay malahan fiiha ay fil asmaa'i asmaada wax jazma ah uma sugnaanin jazma kuma lahan ism sidiisa lama jazmiyo wala raf'iya wala nasbiya wala khafdiya وللأفعال أفعاشنا وحأسقنات من ذلك إعراب تاسي لصور شيء الرفع رفعا يا أسقنات إيه والنصب نصب إيه والجزم جزماء يا أسقنات ولا خفض خفضنا ملها فيها أي في الأفعال أفعاشه خفض ومسقنان أو فعل سيدي ولا ما خفض فعل لما هو صدق سيدي سبب مركا إعراب تحي أكل قيب سمين رفعي نصبوي وذاقان رفعي نصب أسماءنا ولا رفعية وانا النصبية أفعاش ولا رفعية وانا النصبية لكن ميت كستوحي ولا قاري هاي asmaada waxay la gaar tahay qafdo afcaashana waxay la gaar tahay jazma ay la gaar tahay xuruufta ayaga maxaan dhahanay xuruufta ayaga lama i'raabo ee waa la binayaa darsigeena halkaas ayuu noogu dhan yahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa billahi tawfiiq